بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحنا halkan ka salaamaya umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan dunidan dacaladeeda. Waa walaashin midnimo JJ oo aad kala xiriiri jirteen barta Facebook-ga barnaamijka ku saabsanaa midnimada umada Soomaaliyeed wacyigelinta umada Soomaaliyeed wadajirka iyo wadaninimada. walaalayaal barnaamijkii midnimo waxaan helay codsi fara badan oo iiga yimid bulshada Soomaaliyeed dhalinyaradii asxaabta ahayd iyo maxay tahay taageeradaba ayagoo soo jeedinaya inuu barnaamijku uu ka sii hormaro meesha uu taagan yahay. waxaan oo soo eegnay oo aan si fiican u sii gudagalnay in bulshadeena waaridkeen waayeelka iyo dhalinyarada aan haysanin maxay tahay meel ay ka galaan ama ka ogaadaan barnaamijka in aan u sameeyno meel ay qof walba uu access ama meel uu ka heli karo. barnaamijkan midnimo program wuxuu aadi doonaa insha Allah oo kor uu kici doonaa TV-yada waaweyn ee caalamiga ah waxaadna ka maqli doontaan shaashadaha TV-yadaas. waxaan kale oo halkan rabaa caawa inaan kala hadlo umada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Twin Cities-ka United States Soomaalida dhamaantood meel kasto ay joogaan. waxaan idin leeyahay waxa soo baxay ogeysiis yar oo rabnay inaan idin sheegno ilmaha yararka ahaa hooyooyinka iyo waxay ku saabsan tahay arintani iyo aabayaasha waaridka ay ku saabsan tahay. waxa laga helay xanuunkii la dhigi jiray jadeeco ba Minnesota hadda ilmo badan laga helay. waxaan idinka codsanaynaa inaad la xiriirtaan baraha caafimaadkiina ama maxay tahay dhakhaatiirtiina ilmahana aad u sameysaan walaalayaal ka hortag oo aad taageeraysan in maxay tahay aad dhakhaatiirtii la xiriirtaan aad u ogaataan si aad u ogaataan waxay idin qaban karaan ama talaal haday ilmaha u baahan yihiin ama hadii maxay tahay la siisin karo wax ka hortaga because waxa la sheegay in ilmo badan laga helay xanuunkii la dhijiray jadeeco. jadeecaduna way ogtiin ilmaha markay aadka u yaryar yihiin waliba waa cudur dangerous oo dila ilmaha aad u dila. marka waxa sameeynaysan oo aan ku waaninaya oo aan ku baraarujinaya inaad la xiriirtaan meel kasta oo caafimaadkiina aad la xiriiri jirteen dhakhaatiirtiini neersinkiini inaad wacataan oo aad ogaataan sida aad uga hortagi kartaan una talaali kartaan ilmihiina. talaalkuna waa number 1 waana muhiim caafimaadka ayay ugu horeysaa waliba ilmaha marka ay yaryar yihiin because ilmuhu marka ay yaryar yihiin xanuunka iskama difaaci karaan ilaa ay haystaan talaal. talaalkaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha ku maxay badbaadiyo laakiin waa sida ay dhaheen waa sida dhakhaatiirtu dhaheen cilmigu diintaba waa ka yimid waa la ogyahay waa cilmiga because ilmaha aan talaalka lahayn ee aan la talaalinin xanuun kasta easy u yihiin. marka walaalayaal waxaan ku baraarujinayaa inaad ilmaha yararka la xiriirtaan dhakhaatiirtoodii si aad uga gaartaan ama uga hortagtaan xanuunka leeyahay jadeecada. waxaan leeyahay dhamaantiin waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan idinka tagayaa midnimo program iyo insha Allah is arag dambe oo xiiso leh iyo baraha TV-yada caalamiga ah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.